in ka badan 50 arday oo isugu jirta 42 arday oo dhameysatay barashada kombiyuutarka iyo 10 arday oo dhameysatay barashada saxaafadda ayaa xaflad heerkeedu sareeyo loogu qabtay hotel Al-Taqwa ee degmada Buloburte waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada madaxa waxbarashada degmada waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadani ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay macallimiintii muddada dheer soo waxbaraya ardadani maanta xafladani ku qalin jibinaya ustaad Maxamed Axmed Cabdi Deeq Darajo iyo ustaad Cabdinaasir Abduqaadir Geesi ahna ku simaha maamulka iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Debley xafladan maanta aad ku qiimaha badan waa farxad weyn qaasatan aniga waxay ii tahay farxad weyn maadaama aan ahay ama aan arkayo ardaydii juhdiga badan aan ku soo bixiyay oo maanta hadafkooda gaaray inta dadka ay faraxsiin waxaan dhigi karaa in ka badan ayaa inaguna farxad ii tahay iyo waliba ardayda qalin jibinaysaba sidaas daraadeed marka xafladan waxaa loo qabtay arday ka qalin jibinaysa kombiyuutar iyo saxaafad sida aad ka arki kartaan boorka gadaal ku dhaganba horta nimaan wax fashilmin wax ma sameeyo qof hadaa aragtid ku dhahay waxaan gaaray welina ma fashilmin waxaas ma jira guul kasto aad gaaraysid waxa ka horeeya inaad marar badan soo fashilantid kadib ayaad guushi dagaali doontaa ma aha marka nasiixumo ma aha inaad fashilantid laakiin waxa qaab darra oo adigana niyad ku ah inaadan hadaf lahayn waxa laga ordo ma fashil ee waxa laga ordo waa hadaf la'aanta taan isla markaasi waqtiga quruxda badan hadaadan markaasi jacayl uusan jirin meeshan ma imaateen waa hami iyo dhiirigelin loo qabo dugsiga Debley iyo waliba bahda waxbarashada ugu horeeyo guddoonka waxbarashada degmada Buloburte ee wasaaradda dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cilmi Shiina iyo waliba markaasi macallimiinta kala duwan iyo culimada markaasi sida weyn ee waqtigooda inagu ilaaliya ayagoo waliba ay jirto darsiyo badan oo markaasi bixi lahaa ay dartooda iskuulka ugu baajiyeen iyo gabdhaha oo shaqo laga sugayo oo qabtay waa maadsan yihiin sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii qalin jibisa ayaa khudbado kala duwan halkaasi ka jeediyay kombiyuutarku waa aalad ku shaqeysa awoodda korontada taasoo awood u leh in xogta la geliyo ay shaandhayso kaydiso kadibna soo bandhigta natiijada xogta dunidan aan ku noolnahay waxa lagu tiriyaa waayaha kombiyuutarka muhiimadda uu leeyahay kombiyuutarku ma ahan mid aan ku soo koobi karna hal maqaam iyo wax la mid ah kombiyuutarku waxa uu door muhiim ah ku leeyahay nolosha bulshada waxaana lagu isticmaalaa bangiyada iskuulada guryaha xafiisyada suuqa businesska iyo meel kale oo badan kombiyuutarka ruuxiga takaana gurigiisa oo kumanaan ku noo shaqeeya aabakan gurigaaga kaskayo wuxuu maanku dagaadkan gurigaaga kuleejiya aqoon kuruusi baadkan gurigaaga Mustafa Shibcigi kaafiyaadkan gurigaaga Faaruq tafsiirku kaamil ah baadkan gurigaaga kombiyuutarka aad leedahay aalo kabarka kursigiisa goorta tagto kiligna aasiiso kontarool naftaada xumaan keebka u qabin madaxa waxbarashada degmada Buloburte Cilmi Daahir Maxamed oo ka qayb galay munaasabadani ayaa hadallo halkaasi ka jeediyay waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo runtii arday ka qalin jibinayso saxaafadda iyo maadada IT-da ama kombiyuutarka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ayadana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo waxaan kale oo mahadcelinayaa intiina ka soo qayb qabshay dhammaan xafladan quruxda badanna ay soo abaabuleen macallimiinta maamulayaasha dugsiga sare ee Debley ayagana aad ayaan u mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaa hadalka iskaga dambeeyay gudoomiyaha degmada Buloburte Cabdicaziis Cabdullaahi Cabdi Duurow iyo duqa magaalada Maxamed Fido Cawaale Gorgorshe waxa maanta sharaf weyn oo ah degmada Buloburte dufcadii koobaad ee kombiyuutarka ka qalin jibisa qaybta saxaafadda inaan ka soo qayb galno waxay noo tahay sharaf weyn ay noo tahay waxaan leeyahay sii wada hawshiina hadaalinina waxaad tihiin jiilka maanta soo koraya waxaan meeshaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay weyn ka sokow ilaahay baa mahad leh macallimiintii juhdiga intaa la eg bixisay iskuulka Debley dugsi sare dhexe iyo hoose juhdigan bixisay soo saartay dadkaas macallinku waa aabbaha labaad waa aabbaha ruuxiga waaye kan ku dhalay iyo kan wax ku baray labaduba waa aabbayaasha ama waa haday macallimo tahay waa hooyada sidaa daraaddeed waxaa waaye dardaaranku wuxuu yahay waxbarasho ma dhamaato qaybta saxaafadda baratay saxaafaddu waa muddo laba af leh waxna way dhistaa waxna way dumisaa hadda wax baad barateen oo saxaafadda ku saabsan shuruucdeedana sii barta dalka inaad ku dhistaan degmada aad ka bilowdeen waa idinka rabaa Absalan Maxamed Ibrahim Absalan Habi Somali News Buloburte